بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برنو ويدينتن What is a liquidity risk? Liquidity risk ومد كمد قصارها سو وجه شخصياتك إي شركة وحانا لغو قيحي كرا إن أي تهي إن شخصي أما الشركة آني أود ويالان إني هشو لعق أي إسكاغب بحيسو دينت لغو ليهي سيدو كله وحا لغو قيحي كرا هانتي أي شركة ده هيستو inaanay awoodin in ay gado si ay lacag u hesho oo iskaaga bixiso deynta lagu leeyahay waxa inta dheer marka la gadayo hantida in qiimaheeda wax ka hooseeya aan lagu gadin marka shirkad ay ku jirto lacag la'aan waxa ay u keeni kartaa in shirkadda ay burburto xitaa shirkadda haddii ay hanti badan haysato oo waxa dhacda in shirkadda haysata hanti badan balse aanan awoodin inay gado ama suuq u hesho hantida oo ay lacag u hesho si ay u socodsiiso howlaheeda ama ay deynta lagu leeyahay iskaaga bixiso markii la gaaro muddadii lagu heshiiyey. Liquidity risk waxaa loo kala saaraa laba nuuc oo asset liquidity risk iyo funding liquidity risk. haddaan ku hormarno asset liquidity risk sidoo kale waxaa loo yaqaanaa market liquidity risk waana dhibaato ama khasaaro kaga imaata shirkadda inaanay awoodin inay gado hantideeda si fudud haddaba marka aanan hanti la gadi karin oo aanan suuq loo haynin ayadoo qiimaheeda aanan la khasaarin ayaa loo yaqaanaa asset liquidity risk. labo khasaaraha qulqulka lacagta midaasoo in shirkadda aanay awoodin inay buuxiso baahida lacageed ee hadda taagan ama baahida lacageed ee soo socota iyada oo aanan saameyn taban ku yeelanin howl maalmeedka shirkadda ee maaliyadeed. qaababka kala duwan ee la adeegsado si loo maamulo liquidity risk waxaa ka mid in bangi uu u ogolaado inuu u furo shirkadda line of credit ama lacag hormaris oo ay sii qaadato shirkadda si ay ugu sii dabarto howl maalmeedkeeda oo ay lacagtaana ku bixiso muddadii lagu heshiiyey markii la gaaro. sidoo kale in lacag laga soo deynsado suuqa lagu gado warqadaha maaliyadda uu waqtigeedu gaaban yahay ee loo yaqaano money market. sidoo kale waxaa la gudboon maamulka si ay dhibka uga fogaadaan in la sii saadaaliyo lacagta soo galaysa shirkadda ama lacagta baxaysa si la iskugu dheelitiro loogana gaashaanto dhibkan lacag la'aanta inaanu soo laabanin. xog dheeraada oo ku saabsan money market fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabidmo.